bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada Istanbul Kitchen. maanta waxaan sameynaa insha Allah mango lassi insha Allah, cambo cabitaan insha Allah. waxyaalay ka kooban yihiin cambo aan soo jarjaray waay oo fresh, waxaan geliyay finjeerka freezingka inta iigu jiro barf waaye wax xeesha iigu jiro. waxaan ku darayaa plain yogurt insha Allah, ama caana isticmaali kartaa, choice-ka adaa iskale. wax yar sokor aan isticmaali doonaa. inta waxaa yaala heel aan ku dari doonaa insha Allah. cambahana noocaas ayuu ahaa, aan jarjaraan freezerka geliyay insha Allah. haddana waa isku shiidanaynaa. maasha Allah blenderkana isticmaala aniga ka ahiisadila isticmaala. barafaan ku shubay, waxaan galoo ku darayaa insha Allah. heelaan ku darayaa. heel haddaad jecleen waa ka dhaafi kartaa, marka choice-ka adaa iska leh insha Allah. wax yaroo sokora isticmaalayaa insha Allah. sokor haddaa jecleen malaba u bedelin kartaa, ama sidiisa ku cabi kartaa, marka dhib ma laho insha Allah. waxaan galoo ku darayaa plain yogurt insha Allah. maasha Allah intaas isku soo shiidaa, waa isku soo maasha Allah saana kusoo shiiday insha Allah. haddana meelaan kusoo shibanayo koob Ramadan cream. happy Ramadan mubaarak insha Allah. maasha Allah mango lassigana saana kusoo baxay, waa wax aad iyo aad u fudud. marka afartidoo kale haddaa koob qac ku siisid insha Allah, waa wax nafaqana leh. maasha Allah haddaa ka hesheen please subscribe-ka, like, share, comment-kana waa dhinaciina.